waa tahay soo dhowaada daawadayaal habeen wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamij dowleedkeena caawa axmed madoobe iyo siciid dani waxay qorsheynayaan qorshe ka dhan ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud muxuu yahay qorshaha ay damacsan yihiin dani iyo axmed madoobe abaabul xoogan oo ka bilaabanaya magaalada garoobe kulan qarsoodi ah ay halkaasi ku yeelan doonaan ayaan sidoo kale muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa sidoo kale kooxda argagixisada al-shabaab oo cashir xoogan loogu dhigay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose iyadoona dib ay ula wareegeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa afrika ee ausom deegaanada sabiib iyo caanoole kadib maad ay la wareegtay kooxda argagixisada al-shabaab halkaasi muuqaalkan ayaan idinkula wadaagi doonaa balse marka hore waxaan kaa codsanayaa inaad youtube-ka subscribe aad saarato sidoo kalena kambaleelka aad furato si aad u hesho wararka iyo warbixinada aan halkaasi ku baahilo mahadsanideen madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa la filayaa in toddobaadkan uu gaaro magaalada garoobe ee caasimadda maamulka puntland halkaas oo kulan heer sare ah oo kula yeelan doono dhiiggiisa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani xilli dalka ay ka jirto xaalad siyaasadeed oo cakiran sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo xilkasa oo halkaasi ku sugan booqashadan ay inoo xaqiijiyeen ilo ku dhow labada maamulo ayaa ujeeddadu tahay in la iska adkeeyo xiriirka labada dowlad goboleed in la iska kaashado arrimaha masiiriga ah ee dalka gaar ahaan khilaafaadka doorashooyinka ee soo jiitamaya iyo xaaladda guud ee amniga wadahadalladan la qorsheeyey ayaa la rajeynayaa inay sare u qaadi doonaan iskaashiga labada dhinac dibna ay u dhisaan kalsoonida siyaasadeed iyo in wax laga qabto caqabadaha baaxadda leh oo horyaala nidaamka dowladda federaalk soomaaliya labadan hogaamiye waa laba xulufo oo soo jireen ah oo u ololeeya nidaam federaali ah oo awoodda loo baahiyo waxaana iskaashigooda loo arkaa mid culeys siyaasadeed ku keeni kara dadaalada awood uruursiga ee dowladda dhexe ee ka wado gudaha caasimadda dalka wadahadalladan ayaa sidoo kale waxay udub dhexaad u noqon doonaan ismarwaaga siyaasadeed ee dalka ka jira gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo muddo dheer aan xal laga helin khilaafaadka u dhexeeya dowladda dhexe iyo sidoo kale labadan maamul goboleed ee ka tirsan ama hoostaga dowladda federaalk soomaaliya axmed madoobe iyo siciid dani labaduba waxa ay isdaba joogaan ay dhaliilaan maamulka xasan sheekh maxamuud uu hogaamiyo iyagoona ku tilmaama mid aan lala soco karin islamarkaana go-aan iyaga iskooda ay gaaraan kuwaasoo meesha ka saaraya codka iyo aragtiyaha maamul goboleedyada falanqeeyayaasha siyaasadda qaar waxa ay tilmaameen in kulankani uu gacan ka geysan karo abuurista aragti mideysan oo ku aadan habraacyada doorashooyinka islamarkaana uu xoojinayo baaqa loo jeedinayo hanaan siyaasadeed oo loo wada dhan yahay kuna dhisan is-afgarad dhanka kale maanta dagaal xoogan ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya gobolkaasi ayaa sheegaya in maanta ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka ausom ay qaadeen howlgal culus oo ay la wareegeen deegaanka sabiid iyo caanoole oo in dhowaanahanba ay ku sugnaayeen kooxda argagixisada al-shabaab ciidamada hubanta ayaa dagaal adag la galay kooxda argagixisada al-shabaab kadibna waxa ay ka faramuroojiyeen deegaankaasi oo ah mid istiraatiiji ah una dhow degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose labada dhinac ayaa isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona marka dambe laga adkaaday maleeshiyaadka kooxda argagixisada al-shabaab oo jab culus lagu gaarsiiyey dagaalka maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolkaasi marka ugu horeyso waxaan rabnaa inaan halkan ugu hambalyeeno ciidamada qaranka iyo saaxiibada kale ee ka socda dowladda uganda ee runtii maanta gacanta ku dhigay kana sifeeyey deegaanka sabiib iyo caanoole ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose sidaas waxaa yidhi guddoomiyaha gobolkaasi
sidoo kale waxa uu ballan qaaday guddoomiyaha gobolkaasi in dagaal xoogan oo ka dhana kooxda argagixisada al-shabaab looga safeynayo qaybo ka mid a gobolkaasi oo ka bilaabanayo halkaasi. maanta wixii ka dambeeya waxaan qaadi doonaa guluf ka dhana kooxda argagixisada al-shabaab si looga saaro qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose, sidoo hadalku u dhigay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose. jab culus ayaa lagu gaarsiiyey kooxda argagixisada al-shabaab dagaalka maanta. muuqaalo halkaasi ka imaaday kuwaasoo lagu baahiyey baraha bulshada waxa ay muujinayaan godod ay ku dhuulmaaleysanayeen kooxda argagixisada al-shabaab. muuqaalo laga soo duubay iyadoona ciidamada xoogga dalka ay hadda ku sugan yihiin halkaasi kooxda argagixisada al-shabaab ayaa deegaankaasi la wareegtay 15 maarso bishii aynu soo dhaafnay ee 2025, iyadoona weerar qaraxyo ku bilowday iyo dagaal toosa kooxda argagixisada al-shabaab ee deegaanadaasi kusoo qaadeen ee ugu suura gashay in ay kala wareegaan ciidamada xoogga dalka ee halkaasi ku sugnaa. haddii aad soo gaartay dhammaadka muuqaalka waxaan kaa codsanayaa inaad youtube-ka subscribe aad saarato si aad u hesho wararka iyo warbixinada aan halkaasi ku baahino. mahadsanidin.